السلام عليكم guys ku soo dhawaada casharadeen imtixaan aan ugu baratay haadaan oo kale isbuuc walba in idin soo gudbino isbuucan casharka waxaan uga hadlaynaa mowduuc aad iyo aad u xasaasi badan oo adduunka soo kordhay mowduuc isku ma jiro mowduuc muxuu yahay mowduuc wuxuu yahay waxa maanta aroorkii hore subaxii saaka wax laga helay wadanka Jeena caabuq cusub oo lagu magacaabo Hanta virus caabuqaas waxa la sheegay mid kamid ah dadka ku nool wadanka Jeena in oo u dhintay oo baaritaan saaka lagu sameeyay marka caabuqa Hanta virus maxaa la dhahaa intoo naga soo galay asal ahaan soo ku gudbaa iyo maxaa sababo iyo calaamadihiisa lagu gal karaa see loo baaraa iyo see lagu daaweeyaa dhammaan waxyaabahaas oo dhan waxa ugu bagan doontaa muuqaalkeena maanta inta aanan u galgelin koor muuqaalka maanta waxa idin codsanayaa hadda kanaalkayga ku cusub tahay fadlan subscribe saar calaamada oo like-na click noo sii موضوعنا ما أنت وحقو هادلنا وما حي عابق عصب اللي يقانا هانتا فيروس عابق عصب وحلو يقانا ووح كترسن وحيابها أو كلا قيبني هراء أصو أشرحني وحيابها اللي يقانا فيروس وح أصو كلا قيبني RNA فيروس وحلو يقانا DNA فيروس عابق اللي يقانا هانتا فيروس وحو كترسن هي جروب كله يقانو RNA فيروس وحلو يقانا single strand وليه enveloped وحواي فيروس wuxuu ka tirsan yahay enveloped way wuxuuna hoos tagaa family loo yaqaan Bonia feralis loo yaqaan Bonia feralis magac kale loo yaqaan jiro Orta Hanta virus na lagu magacaabi karaa marka viruskan muxuu sidoo noo gudbaa viruskan wuxuu ku gudbaa transmissionkiisa waxa gudbinayo waxa uu naqaan jiirka ama dooli adahno magacyo badan oo leeyahay dooliga gudbinaya dooliga wuxuu sameeynaa jirkiisa gudbina transmission ama xaafadaha dooliga uu ku nool yahay ama dadka isticmaala dooliga oo cuno hilib aan u isticmaalo sida wadanka Jeena ku aragteen muuqaalo fara badan iyagoo isticmaalaya raashin aan u cunay dadkaas waxa ka dhasho hadoo maalmo meel yaalo kale hilibkiisa isbedelayo isbedelka ku dhaca hilibka oo dooliga waxa keena cudurkaas noo keena cudurkaas mar alla markuu qof ku dhaco wuxuu isku gadinaa wax loo yaqaan HBS oo loo yaqaan Hanta virus pulmonary syndrome cudur loo yaqaan isku gadinaa syndrome waa naqaana waa wax ka yimaada genetical problems qofka jirkiisa wuxuu qaatay ama motivational disorder ka asoo ku uma dartiisa wuxuu isku bedelaa wax la yaqaan syndromes kaasoo ku naqana qofka mana ka soo kabsan karo asoo qaas ku ahaana problem oo wuxuu qabaa marka wiligiisa aan ka daba hareynin marka cudurkan waxaanu gudbinayo baalkaas loo yaqaan jirkaas aanu gudbinayo marka signs and symptoms calaamadaha lagu garan karo waa naqaana cudurkii oo magaalada hadda wareeri baryahan وعلامات أهان كأجدو يهاي ماسك البينا أسكو أركي مرخي إنه كحنونه فيفر خلنا جوكتا أسكو أركي تايرد ناس أسكو أركي إنه دال تربضن أركتد وحاكلا أسكو أركي إنه جيرجو مرخي إنه كوجو أنا أسكو أركي وحاكلا أسكو أركي قفك إنه جركي سكولو لي هاي علامته وأنكو أركي أنا كورونا فيروس خارك من أكو أركي marka calaamadaas da isku aragtido kale cudurkan oo Hanta virus la dhahayo ajiro marka Hanta virus transmissionkiisa bini aadan kala muu gudbi karaa marka qoraalada ugu dambeeyay la soo bandhigay waxay sheegayeen cudurka Hanta virus sida hadda lagu arkay qof bini aadan kala muu gudbi karo laakiin qofka bini aadan hadda affected noqdo oo cudurkan qabo wuxuu ku gudbinaa through his waste production waxyaaba bini aadanka imaan sida kaadiisa kale infected tahay kaadaas oo kale qofka bini aadanka uu gudbo oo taabto kale uu qaadi karaa waxa kale uu gudbaa through saliva hadoo qofka cudurkan qabo oo kissing sameeyo gabar oo afka ka dhuuqay baashi uu sameeyay uu ku gudbi karaa ama candhuuftiisa ku soo gaarto uu gudbi karaa afka inay ku gasho candhuuftiisa iyo saxaridiisa kale inay ku soo gaarto kale uu ku gudbi karaa waxyaabahaas oo cudurkan ku gudbaa waxaana oo asal ahaan ka imaada hilibkaas oo jiirka la isticmaalo ka imaada marka cudurkan hadda sheegayna daawo ma leeyahay ilaa iyo hadda maadaama cudurkan oo groupka RNA ka tirsan yahay nonsense RNA ka tirsan yahay oo daawo ilaa hadda official oo lagu dhawaaqay ma jiro daawo rasmi ah oo loo qaadan karo malaha hal qof shaaka laga helay waa la baaritaan la sameeyay baaritaankaas la sameeyay hal qof laga helay qofkii u dhintay waxaana lagu shakisan yahay wadanka Jeena inuu hadda cudurkaas caabuqaas hadda soo kordho oo ka dilaacay wixii warar dheeri ah ka soo kordho cudurkan loo yaqaan Hanta viruskan waxa idinku soo gudbi doonaa akhbaaraadkeena dambe oo aad YouTube kala socon doontaa insha Allah marka iska ilaaliya waxyaabahan oo caabuqa adduunka soo kordhayo mar walba aan ku dadaal nadaafadeena ilaahay wuxuu noo gargaar shanta salaad aad tukanayno salaad walba aad tukatid aad isticmaalaysid weesqaadkaas haddii haarey ku tahay weesqaadka halaal yaa laga dhigin hala badiyo
dadka badanaa qaarkood way wahsi badan yihiin halala isticmaalaan weesqaadka saddexda oo sida sunnada ee hala raaco saddex hadduu qofka ka dhigo si fiican jirkiisa oo u nadiifiyo waxaa suurtagal ah inuunan gudbin cudurkan dahaarada ugu fiican oo qofka bini'aadamka oo muslimka sameeyo waa inuu shanta salaadood tugtaa oo weesqaadka badiyaa marka waana mahadsantihiin mawduucan intaas ku soo gabagabeynayna waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.